xogayaha Mareykanka Mark Rubio waraysi laga qaaday ayaa wuxuu ku sheegay sidan. The world is changing very fast right on us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine. oo micnaheedu noqonayo dunidu si dhaqso ah ayay isku bedelaysaa indhaheena horteeda. Dunidii hore way dhamaatay, waxaan ku noolnahay dunic cusub dhinaca siyaasadda geopoliticalka. sidoo kale madaxweynaha China ayaa wuxuu sheegay sidan. dunida maanta waxa ka socda isbedel weyn oo qarnigii kaliya hal mar dhaca. haddaba dhammaan hadallada ka soo yeeraya super powerska caalamka Somaliland fursad weyn buu tahay. haddaba waxaad ogaataa Somalilandro ood ku bishaaraysataa dunidan cusub fursado aad iyo aad u badan bay abuurayaan. Somaliland waa cid ugu horeysa ee fursadda u weyn qaadanaysa waqtigan. sababtoo Somaliland waxay dhistay wax la yiraahdo brand, magac waxay dhistay aan dawrsan, magac aan waxba qarxin, magac aan waxba xadin, magac waxay dhistay dimuqraadiga. waana waxyaabaha ay reer galbeedka Somaliland ku jeclaadeen. haddii aad dhageysato waraysi laga qaaday safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Ethiopia, wuxuu ka hadlayaa Somaliland waa dalka qura ee laga helay waxyaabaha ay reer galbeedka iyo Mareykanku ay jecel yihiin in dal lagu arko. ila dhageyso. We do these, qualities that we would like to see in certain countries. If you look at the Horn of Africa, Somaliland is the one that follows most of them. A democratic system, one person, one vote election, free market economy. They keep China out, and they actually have an understanding with Taiwan. Tremendous strategic assets in the port of Berbera and the airport there. They do not get U.S. assistance or assistance from anybody, and yet they are succeeding. And, they're doing all the things that the United States says they would like to see a nation do. quwado aad waaweyn bay sayay dhinac waxa ka soo jeeda reer galbeed Mareykan, Israel, halka ay dhinac kale ka soo jeedaan Ruush, China, North Korea iyo wadamo badan oo ka soo horjeeda Israel. sidoo ku muuqata Somaliland waxay la jirtaa reer galbeedka America, Israel. Somaliland ma aha sida Soomaaliya, balse Soomaaliya waxaad moodaa inay ururinayso qaadaan. waxay u tagaysaa Masar, haddana waxay u tagaysaa Ethiopia colihiin.